قف مركوب فيري بل لا أرى صور كان من كان عوانتا إنا لله وإنا إليه راجعون muuqaal kan waxaan garan waayay waxaan ugu magac daro ama aan ciwaan uga dhigo nimankan aad arkaysaan waxa ay jiidayaan ma ahan jawaan uu qashin ku jiro mana ahan neef baqtiyay oo urtiisa la iska fogeynayo laakiin waa qof bini aadan ah oo lugaha laga xiray markii hore la dilay dharkii laga siibay kadibna la jiidayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun run ahaantii waa nasiib daradii ugu weyneed iyo waxyaabihii maalmihii la soo dhaafay aan arkaynay wixii ugu xumaa mid ka mid ah idinkaga sheekayn maayo waxaa laga yaabaa inaad aragtay muuqaalka ama sawirkan inaad aragtay waa beelo walaalo ah dagaal dhexdooda ka dhashay arrin ka yimid waa dad walaalo ah oo wada dega oo ma aragtaa si kastaba isugu milan dagaalkoodina waxa uu dhaxlay in sidani muuqaalo la isaga duubo meydkana la ihaanaysto okay 2025 inagoo galayna adduunku xadaarad kasta uu ku talaabsanayo maalin kastana wax cusub la iqtiraacayo anaguna inaan ma aragtaa joogno meeshii ugu hooseysay oo kumanaan sano ka hor ay joogeen dadyowa ku hirdamaya caalamka inaan maanta joogno waa noo nasiib xumo waxaan hayaa hal taladaasi haddii laga qaato ummadan Soomaaliyeedna taladaasi lagu dabaqo waxaan hubaa in uusan dhici doonin dagaal dambe oo beeleed taladan anaa goobjoog u soo ahaa taabtay oo arkay haddii ay macno leedahana macnaheeda aniga ayaa fahmay una soo joogay taladaasi dadka aqoon-yahanka ah madaxda iyo mas'uuliyiintu waxaan jeclaan lahaa inay iga qaataan yacni dadka ay ka go'do arrimaha masiiriga ee wadanku dadka uu ka go'o inay iga qaataan ayaan jeclaan lahaa taladaasi waxa ay damin doontaa dab kasta oo shidan waxa ayna furi doontaa albaab kasta oo ummadan ka xiran ay furi doontaa qalbi kasta oo qufulana waa ay furi doontaa deegaanada aniga aan ku noolaa waxa uu ka mid ahaa deegaamadii ay saameynta ku yeelatay arrimihii qabaa'ilka dagaalada isqabqabsiga hadda waxaan arkaynaa laba qabiil oo daris ah in ay islaynayaan xilli waxaa la soo maray labada qabiil ee dariska iska daayay qabiil kasta ee hal tuulo degani dhexdiisa in uu isqabqabsado oo uu isdagaalo xilli noocaas ayaa la soo maray qabiil kastana sidaas ayuu ahaa iska daa qabiil marka laga yimaado dadka isku qaaraanka ah ee hoose ayaa ilma adeer xilli ay isdilaan la soo maray arrintaasi waxa ay mid jaha wareer aad iyo aad u weyn 34 sano oo laga joogo burburkii dawladii Soomaaliya ilaa iyo hadda wax ummadan Soomaaliyeed ay indhaha ku nuursadaan oo dawlad ah oo ammaan ah oo dhaqaale ah oo wax kasta ah oo loo baahan yahay ma jirto deegaan kasta marka waxa ka jiray dad mooryaan ah oo dadka dhaca oo dadka dila ayaa deegaan kasta ka jiray deegaankii aan ku noolaa marka cadaado iyo deegaanada dadka dagaahi ay degaan oo dhan niman ka soo jeeda oo dhowr iyo 10 nin iyo hablo isugu jira bal u fiirso oo markaa qurbaha ku noolaa ayaa waxa ay u adkeysan waayeen oo ay aamini waayeen waxa dalka ka socda gaar ahaan deegaankooda ka socda ay aamini waayeen way wada fariisteen waxa la yiri dadkan sideen wadada saxda ah ugu soo ridnaa oo dad caadi ah sababtoo ah ninka qurbaha ka imaanaya markuu waalidkii u yimaado oo wadankii yimaado deegaankiisa hoose markuu waalidkii u yimaado walaalkii ina adeerkii ayaa inta qora halka ka saaro wuxuu leeyahay waxaad wada dhig cabsidaas baa jirta marka nimankan marka waxay go'aansadeen in wax ka bedelaan arrinta waxa la yiri maxaan sameeynaa waxa la soo jeediyay dadkan in qalbigooda la dhiso maskaxdooda in la dhiso iyadoon la oran qoryaha iska dhigneen ninkii balwad lahaa iyadoon la dhihin balwada iska dhaaf ayaa waxa la sameynayaa waxa lagu kalifayaa qof kastaba in uu iska dhaafo waxaan uu gacmaha kula jiro sidee waaye dadka waxa la baraa dadka waxa la baro waxa la go'aansaday in dadkaasi wax la baro deegaanka ku nool tana waxa socda wajiga labaad ee tiimbeerista ee isbitaalka Samakaal xarunta aan ku leenahay magaalada Nairobi waxa loo sameeyay hay'ad la yiraahdo iftiin oo markaa looga jeeday in ay dadkan iftiin u furto mugdiga ku jira hay'adda baa loo sameeyay iftiin deegaan kasta oo dadkaasi ay degaan ayaa waxa la go'aansaday in looga furo iskuul waxyaabihii la yaab kala waxa kamid ah iskuulka markii la keenayay ee dadkani maaragtay iskuulka loo furayay in ay dad ka hor imaadeen ilaa qalbigoodii baa qufulan waxa ay diidan yihiin in wax la barto haba yaraatee wax barashada macnaheeda ayayna fahansaneen wax barasho bilaash ah oo aan cid wax laga qaadayahay aanay jirin ayay u soo bandhigeen nimankii waa ay shireen dhaqaalay raadiyeen waxa la go'aansaday in iskuulaad tuulo kasta iskuul loo furo dadka la baro cilmi waxa la barayaa cilmi maadi ah iyo mid diiniyaba macnaha ayaa la fahansiinaya cilmiga macnihiisa la fahansiinaya
hagaag tuulo kasta oo deegaanka ka mid ah waxaa la gaarsiiyey waxbarashadii iftiin baa gaarsiisay markii ay gaarsiisay kadib waxa laala wixii ku baxaya oo qarash ah waxa bixinaya iyaga ardada waxa ay ku dhiganaysay si free ah oo waxba laga qaadin lacag ah deegaankii in ka yar 2 sano ayay wax walba ay isbedeleen dhalinyaradii ugu badnayd ee maaragta banaanada iyo fadhi ku dirrada taagtaagnaa jiray waxaa la arkay iyagii oo isbedelay oo waxbarasho xaggeeda u jahaystay marka dagaal beeleed uu dhaco dhalinyaradii ku ordi jirtay ee meydkooda iyo dhaawacooda la soo daldali jiray waxaa la arkay iyagii oo aan farba taagayn oo dhahaya waxaan la wadaa waa baadil waayo maskaxdooda waxaa laga buuxiyey macnaha wada noolaashaha iyo qofku inuu si xarakale u noolaado ay leedahay iyo inuusan iska ordin ayaa maskaxdooda laga buuxiyey iyadoon la dhihin qoraga dhiga iyadoon la dhihin cidna ma dili kartid cidna ma dhici kartid cidna maaragta kuma xadgudbi kartid iyadoon la dhihin ayaa la arkay dhalinyaradii oo si totally isbedeshay okay waxbarashadiiba u macaanaatay hadda xilliga aan kula hadlayo 10,000 oo hablo iyo rag isugu jira ayaa ka aflaxay fakti horeba waxaa joogsaday dagaalkii dhexdooda ahaa oo walaal iyo adeer iyo maaragtay laflafta hoose maaragtay isku canaana jiray isku dili jiray ayaaba totally joogsaday hadda deegaanada dadka ka soo jeeda kuwooda dagaalamahay waa kuwa aan wali qalinka qaadan aniga maanta haddaad cirkaa ka timaado oo dhulkaa ka timaado oo meel kasta iga imaado igama dhaadhicin kartid dagaal qabiil u riyaaq igama dhaadhici kartid dagaal qabiil gal oo qori qaado ma iga dhaadhici kartid waxaanan mahad uga hayaa nimankaa la yidhaahdo iftiin ee isoo baray ayaan mahad uga hayaa ilaahay ka sokow alxamdulilah okay taasi waxa ay ahayd tusaale anigu aan usoo joogay oo aan usoo noolaa maanta marka waa qodobka ugu muhiimsan ee dadkan lagu badbaadi karo dhiigooda lagu kala badbaadi karo war qofku marka uu fahmo macnaha aayadan waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha qofku marka uu fahmo fiiri waman yaqtul mu'minan qofkii qof mu'min ah dila mutacammidan isagoo u kasaya dila fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha ilaahay baa ku goodinaya subxaana wa tacaala qofkii qof mu'min ah dila oo si kas u dila jahannamo ayay abaalmarintiisu noqonaysaa weligiisna waa uu ku waarayaa ilaahay baa le subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay ugu daray subxaana wa tacaala oo uu leeyahay waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ilaahay wuu u caroonayaa qofka sidaa qofka muslimka u dilay ilaahay wuu u caroonayaa kaska u dilay naxariistiisana waa uu ka dheereynayaa cadaab adag oo weynna wuu u diyaariyay ilaahay subxaana wa tacaala qofka intaas si fahmay mukula tahay inuu u bareerayay inuu naar galo mukula tahay wallahi ma jiro dadkan waxay u baahan yihiin intaa in la baro in loo macneeyo qofka isagoo qur-aankii yaqaana ayaad arkaysaa isagoo akhrinaya aayadaasi inuu wax dilaya aad arkaysaa qofku macnaheeduusan fahansanayn war dadka waxaa yacni nabadda doondoonow dadkana waa juhalo nabigu sala allahu alay wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimka ahi waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa laga nabadgalo haye qofkaas waa qofka muslimka ah maanta muslimnimo ayaan sheeganaynaa haddana waxaas oo dhibaato ah ayaan samaynaynaa qof baa la iska dilaya la iska dhacaya xolihiisa la iska qaadanaya waxaas wax shaqaynaya ma ahan aakhiradiina u tura oo u naxa xadiidka nabigu wuxuu ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsih axadkiin ma rumaynayo iimaan lagama helin axadkiin ilaa uu waxa isagu uu jecel yahay uu walaalkiis la jeclaado haddaad nolol jeceshahay waa inaad walaalkaa nolol la jeclaataa haddaad walaalkaa nolol la jeclaan weyso walaalkaa muslimka ah inama almu'minuuna ikhwa haddii walaalkaaga mu'minka ama muslimka ah aad la jeclaan weyso nolol inuu noolaado sida adiga aad jeceshahay inaad u noolaato ogaaw iimaan malihid haddaad walaalkaa inuu bulaalo oo hanti iyo maal iyo owlaad iyo caafimaad uu helo haddaad la jeclaan weyso walaalka ogaaw adigana iimaan lagaama helin okay dadkan waa jaahiliin kaliya waxay u baahan yihiin wax la baray u baahan yihiin in wax la baray u baahan yihiin
qoraga dhig iyadoon la dhihin dhibaatada wadaahay joog halka ay ku dagaalamayaan ayaa la rabaa in iskuulaada looga furo oo maxadyo diini ah looga furo macnaha nolosha in la noolaado oo la wada noolaado oo qofkan la ammaan geliyo macnaheeda in la fahansiiyaa la rabaa halkaa tala ayaan maanta soo jeedinayaa waxaan jeclaan lahaa inay iga dhageystaan dadka nabadda doondoona ee madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo nabadoonnada ah intaa inay iga dhageystaan wallaahi waxaan hubaa 5 sano ama 6 sano ama 10 sano hadda kadib ah inaan la arkaynin laba qabiil oo isku soo xadgudubta bal weydiiyo dadka qofkaan dagaalka u ordaya weydii haddaad dhimato maxaa kaa horeeya dheh ma oga wax ka horeeya maxaad u dagaalamaysaa maxaa faa'iido kugu jira haddaad tiraahdid ma fahmi karo mid kale haddaad u riyaaqdo iska daa wax kale salaad sunna ah iyo mid farada tona laga aqbali ma haddaad xataa qalbiga ka jeclaato oo aad u riyaaqdo oo aad qabiil taageerto laba qabiil oo dagaalamaysa oo si baadila ku dagaalamaysa haddaad taageersid mid kamid ah والسلام عليكم dadka ku dhaqan Nairobi waxaa loogu bishaareynayaa in Samakaal Hospital uu ka furay Medical Center Nairobi xaafadda Backland Diamond Plaza 2 waxaad helaysaa timan beeris casriya dandiste iyo sidoo kale doctorka maqaarka fadlan wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan hoose tana waxaa socda wejiga labaad ee timan beerista ee isbitaalka Samakaal xarunta aan ku leenahay magaalada Nairobi